nin saxaabiyo Julaybiib la oran jiray baa jira Julaybiib nin wuxuu ahaa dhaxaaka oo kaftan badan oo xataa dumarka reer Madiina marmar la kaftami jiray la yiri iska furfurno cid walba la hadlabuha dumarka ansaareed intay isku sheegeen bay yiraahdeen Julaybiib islaanina inay inanteeda iskaga dhisin ninkaas akhlaaqdiisu ma wanaagsanee maalin maalmaha kamida Julaybiib iyo nabiga isku hor yimid alayhi salaatu wasalaam dana markaa uu nabigu ku yiri Julaybiib oo ma guursatay markaasuu yaa rasuul aniga ayaa ii dhisay buu yiri hadana maalin kale nabiga sarkeen yaa Julaybiib oo lima guursatay markaasuu yaa rasuul aniga ayaa ii dhisay markaa uu nabigu orado reehebel inantoodii baa qaan gaadhay oo hadda toolo guurgal u diyaaree waxaad ku tiraahdaa nabi maxamed baa soo diray ku dheh ku salli rasuulkeen sidii nabiga u qadarinayeen dhageyso deedna markaas Julaybiibna waa la yaqaan magaalada Madiina dhanba taqaan akhlaaqdiisa oo aqal kasta waa lagu hadal hayaayo waxa la leeyahay Julaybiib yaanan gabadh la iskaga dhisin waayo akhlaaqdiisu ma fiicna ninkaasi aan dumarka la kaftamo oo meel walba ku sheekeeyo oo macaasharadiisu ma hagaagsano isku sheegeen deedna markaas reerkiibu u yimido odaygii reerka lahaa buu u tagay deedna markaas uu ku yiri nabiga ay soo diray alayhi salaatu wasalaam oo nabigu wuxuu salaam buu igu ka soo dhiibay ee horta salaanta iga gudoon markaa buu salaantii ka gudoomay deedna markaas uu rasuulka ilaahay baa ii soo diray igu yiri inantooda ma aragtaan ha lagu dhiso oo inantiina baan u socdaa nabiga amarka soo bixiyay waxay leedahay culimadu inanta reerkaasi inay qaan gaadhay nabigu sidee buu ku gartay ku salli rasuul sidoo ku gartay waxa la reer Madiina dhaqan waxay ka sinaayeen haday gabadhu ay daadii lagu guurinayay ay gaadho ayay nabiga u sheegi jireen ee oran jireen yaa rasuulallah hadii aad adigu u diyaar tahayna inantayadii way qaan gaadhay waa ku diyaar hadaad cid kale u rabtana waa ku diyaar oo inantu markay qaan gaadho waxa u soo haasaawaya abaheed ama walaalkeed ama abtigeed ama adeerkeed intaas u soo baadbaadaysa ninka ku munaasibka gabadhaas inagana maanta zamankeena ka warama gabdhaha barmeena ka u raadin masayida soo raadsata ya iyada soo doondoonato waliba waxa lagu la dardaarmaayo la yiraahdaa niya mid hay'adaha u shaqeeyo oo noo keen hay'adaha laageena hay'adaha yar kharash badan moogta kharashka badan bixiya fadhiisa soo socodka daaya soo lama ogolo dhageysta soo doona maaha inantu aqalkaba kamay soo baxayn waxay ku dhaqmaysay ku amal falaysa quraanka waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula waqimna as-salata wa atina az-zakata ila akhir al-aya gabdhuhu xijaabka ugu horeeya ama jilbaabka ugu horeeya gabadha muuminada laga rabo waa inay guri joog noqoto marka ugu horeyso guriga weeyaan asturka gabadha guriga ka bilaama waa inay noqoto gabadh guriga fadhida waqarna fi buyutikunna marka inantii markay qaan gaadhaba ninka saxaabigu nabigu u sheegay uu leeyahay hadaad adigu inanta aad doonaysid nabi Allah waa ku diyaar hadaad cid kale u doonaysana waa diyaar inantaada inaad nin u raadisaa inaga xageena ceeb loo arkaa oo waxa la leeyahay warmatul xallu hayaayo cid u saaru doondoonaya cid ka reebta ya muslim Hafsa bint Umar radiyallahu anhuma markii ninkeedu ka dhintay ayaa u soo hasaaway abaheed baa u soo hasaaway Umar ibn Khattab ayaa intuu Abi Bakar u tagay buu ku yiri ya orta Usmaan buu u tagay ya Usmaan hadaad doontid Hafsa waan ku dhisi markaasuu yiri waan ka soo tashanay kaadi oo soo noqdo wuxuu ku yiri kolkaan isku noqdeen tashaday waxa ay soo baxday maanta sanadka inaan guursane wala liga raali ahaw hadana Umar ma fadhiisane Abi Bakar Siddiq buu tago wuxuu ku yiri ya Abu Bakar wal inantaydii Hafsa hadaad doonto waan ku dhisi Abu Bakar haayeenay ma oran mayana ima oran oo iga aamusay buu yiri muddo yar kadib inantaydii waxa iga soo doonay buu Umar ibn Khattab
rasuulka ilaahay baa iga soo doonay maalintii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu xabso uu guursaday ayaa abubakar iyo cumar iska hor yimaadeen abubakar baa hadlo wuxuu yidhi yaa cumar malaha qalbigaad wax igu haysaa haawaan kuugu hayaa buu ku yidhi waayo inantayda xabsa adiga hortaa cusmaan baan u bandhigay cusmaan jawaab waafiyu ii soo celiyey oo maya buu igu yidhi maanta diyaar uma ihi ama adiga markaan xabsa kuu bandhigay hayana ima odhan mayana imaad odhan waad ii aamustay markaasuu abubakar ku yidhi aniga arrintaa kaa shaafinaya i dhegayso waxaan ogaa nebi maxamed oo xabsa inuu guursado hadal haya markaa sirtii nebigaan hayay buu yidhi ma sirtii nebigaan kuu sheegaa buu yidhi laakiin waxaa iga ballan oo iga go'nayd buu yidhi hadduu nebi maxamed xabsa uu iska dayn lahaa anaa kaa guursan lahaa buu ka yidhi marka dadka ahlal khayrka ee diinta aad ku tuhmaysid ee dabeecadda wanaagsan aad ku tuhmaysid ee dadnimada fiican aad ku tuhmaysid inaad inantaada la doodoonataa ceeb maahina waa curfigii islaamkuna baray weeyaan oo dhaqankii wanaagsana waxaa dhaqan xumo ah inaad inantaada ku tiraahda orodoo bal mid shaqeeyo uun aabba noo keen midaan shaqaynin naga ilaali annakii baaba culculuse sidaasuu markaa nebigu ku ogaaday inantan inay qaan gaadhay oo guriga inan ay joogto dadna markaa waxaa yimiday julaybiib markuu odaygii u tagu yidhi inantiinaan rabaayo nebigaas amarkaas soo bixiyey odaygii markaa uu yaabay julaybiib matiid ha julaybiib baan ahay xataa ushaawira ummaha buuhi baliikaada hooyadeed baan la tashanayeen way shuuraysan jireen dadku bariga waa isku xidhnaayeen ijtimaaciyadda u dhasnayd ummadnimadaa ka winayd dadna markaasuu waxa u tagay markaa odaygii baa u tagay islaantii wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam ayaa nin buu nebigu soo diro inanteenna u soo diray markaa bay tihi nacam wa karaamatan bay tidhi waxay tihi wallaahi waan soo dhawaynaynaa waana arrin la maamuusoo la sharfo weeyaan waa nicmad markaasuu ku yidhi innahu julaybiib laakiin ninka nebiguu soo diray dee waa julaybiib markaa bay tihi ma julaybiib dib bay uga joogsatay ilaa ninkan waa la yaqaanaa moogtahay dhaqan xumadiisa inantiibaa xagga dambe ka hadashoo tidhi wain kaana julaybiiban walow julaybiibba haba ahaadaba bay ku tidhi ma rasuulkii ilaahay amarka uu soo bixiyey ayaad celinaysaan bay ku tidhi ilaahay iyo rasuulkiisu aniga i dayici maayaan marna meel xun i dhigi maayaan oo i dayici maayaane nebi maxamed hadduu yidhi inantaa u soo dhisa ibixiya bay ku tidhi ilaahay aniga ima dayacaye rasuulkiisuna i dayici maaye may eegin shakhsigan gabadha soo doonay waxaa la eegay ka soo diray baa la eegay yaa soo diray rasuulkii ilaahay baa soo diray calayhi salaatu wasalaam rasuulkii ilaahay baa soo diray dadna waa loo dhisay waa la siiyey gabadhii saxaabadii buu nebigu ku yidhi julaybiib waa caroose bal wax yar u soo keenkeenoo isku geeya caawaha aroos gale isagoo carooska isku diyaarinayaa loo baxay ghaswatu uxud buu ku shahiiday baa la yidhi isagoona naqalgelin ghaswatu uxud buu ku shahiiday isagoo aanan caroos gelin oo naqal gelin markii dadkii dhintay la kala guranayay buu nebigu saxaabada ku yidhi nin baan tabayaa war nin baan weli laaho araggiisa aan laahay markaasaa nebi allow gaaladuna wuxuugi way gurteen baktigoogii annakana shuhadadeenni waa kuwan markaabuu nebigu war doondoona markaasaa loogu yimida julaybiib markaasuu nebigu julaybiiba waxaa la helay mayda oo 7 nin oo mushrikiin isaguna laayay isagiina markii dambe la duldhigay meydkiisi markaasuu nebigu waa kan ninkan tabaayay gabadhii buu nebigu u duceeyey ilaahu gabadha cayshkeega maciishadeeda sida roobka ilaahu kaga dhig nolosheeda ilaahu ciriiri ha ka dhigin buu yidhi gabadhii amarkii nebi maxamed way fulisay ninkii julaybiibna lama aqal geline ilaahay shahaado ayuu siiyey gabadhii waxaa la yidhi waxay noqotay gabadh barakaysan oo gabdhaha saxaabiyaadka ugu baraka badan oo reerkeegu adduunye iyo diin iyo ubad ba ilaahay ka buuxiyey markii dambe rag badan oo dambe oo asxaabta ka mid ah guursaday marka waxaan ka wadaa marba hadduu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu amar bixiyo amarka nebi maxamed saxaabada 100% bay qaadanayeen